daawadayaasha qiimaha leh halka aad nagala socotaan waa Global Computer Youth Group channelkaas oo aan dhowaan ka bedelnay magaciisa Aljazeera annagoo doonayna inaan wararka kooban aan kusoo qaadano. Wararka ayaa maanta waxaan kusoo qaadan doonaa maadaama bariga dhexe uu aad u holcaya dhammaan wararka wuxuu ku saabsan yahay gobolka bariga dhexe gaar ahaan dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Israel khasaaraha halal kala marayo gantaalada la isla adeegsaday iyo hanjabaadaha la isdhaafsaday waxyaalahaas oo dhan aan ku eegi doonaa barnaamijkeena. Subscribe saar haddii aad ku cusub tahay channelka, like saar, commentigana ha moogaanin inaad kusoo qorto sidaad u aragto barnaamijkan waad mahadsan tahay. Haddii aan ku bilowno dagaalka oo kale maalinkiisii shanaad iyadoo uu bilowday maalinkii jimcaha ahayd maanta talaadana ay tahay maalinkiisii shanaad waxaa muuqata in la isku awood sheeganayo iyadoo weerar iyo weerar celis la isku hayo tit for tat attacks ay u badan yihiin. Dowladda Iiraan ayaa waxay ka jawaabaysaa mar waliba weerarkii lagu soo qaaday ama dhibaatadii loo geysto ayay ka falcelinaysaa iyadoo jugta ay ku horreysay ama ay ku horumartay dowladda Israel oo ay kaga horumartay waddankaasi Iiraan. Iiraan maalinkii shanaad roob ahaan waxay kaga dhigaysaa ama ay ku harqinaysaa sida roobka oo kale gantaalada noocyadooda kala duwan sida kuwa balastiga loo yaqaano iyo hypersoniga iyadoo ay sida la sheegayna dhowaan ay adeegsan doonto gantaalada loo yaqaano supersonic inay lasoo bixi doonto oo ka khatarsan ama ka degdeg badan gantaalada hypersoniga. Sidoo kale difaaca labada dal ayaa waxaa mid oo midka kale uu ku hayaa weerar celis isagoo mid walba iska difaacayo waxyaalaha loo geysanayo. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo isna soo gabagabeeyey safar uu ku tegey ama uu kaga qayb galayay waddanka Canada shir ay ku lahaayeen dhulka G7 loo yaqaano. Waxaa muuqata in Donald Trump uu ku jaha weeraray siyaasadda gobolka bariga dhexe islamarkaana uusan la'yahay meel uu tala ka bilaabo. Habeenkii xaleed maroo sii dhaqaaqayay ayaa waxa uu sheegay Donald Trump in ama hanjabaad uu u jeediyey in lasaga baxo ama laga guuro dhammaan dadweynaha ku nool magaalada Tehran ayaa la sheegayaa dad gaaraya ilaa 15 milyan oo ruux inay ku nooshahay oo magaalo aad iyo aad u weyn. Dhanka khasaaraha labada dal ay isgaarsiiyeen dhanka Iiraan, Israel ayaa wado xeryaha ay xoogan oo ay ku qaadayso dhammaan dhufaysyada iyo magaalooyinka ka tirsan dalkaasi Iiraan. Goob waliba ayaa oo muhiim u ah iyo xarumihii ciidamada, kaabayaashii dhaqaalaha iyo sidoo kale warshadihii iyo waxyaabo badan ayay ka burburisay dowladda Iiraan. Sidoo kale Iiraan waxyaabaha soo gaaraya waxay ka mid tahay saraakiil ama raggii markaasi saynisyahanada laga laayay iyadoo maanta ay ugu dambeysay sida ay sheegayaan ciidamada Israel inay markaasi ay khaarijiyeen taliyihii cusbaa ee ciidanka guud ee dalka Iiraan ninka lagu magacaabo Major General Ali Shamdani. Laakiin dhanka Iiraan weli ma aysan xaqiijinin waa Israel sida ay sheeganayso. Dhanka Israel khasaaraha soo gaaraya waxaa ka mid ah Iiraan ayaa weli waxay beegsanaysaa dhammaan goobaha ciidamada laga maamuli jiray xarumihii sirdooneed iyo goobayaal badan oo muhiim u ah sida xaruntii weyneed ee gaashaandhigga oo u dhiganta xarunta Pentagonka dalkaasi Mareykanka. Xaruntii weyneed ee Musaadka ee sirdoonka ku kala yaalay magaalooyin dhowr ah sida Tel Aviv, Haifa oo ay maanta ugu dambeysay xaruntii militariga iyo sirdoonka ee howlgallada iyo qorshaynta Musaad sida ay ku soo waramayso Aljazeera ay ka soo xiganayso wakaaladda wararka ee Tasnim News Agency ee dalka Iiraan. Dhimashada iyo dhaawaca ayaa sii kordhaya labada dal ay isu geysanayaan. Sidoo kale Iiraan ayaa waxay sheegaysaa in dhimashada ay kor u kacayso halka markaa sidoo kalena dowladda Israel ay qarinayso dhammaan khasaaraha soo gaaraya iyadoo markaasi diiday inay markaasi warbaahinta ama dadweynaha ay tabiyaan dhammaan waxyaalihii meeshaas ka dhacayay. Ma jirto wax muuqaalo ah ama sawiraha lasoo gudbinayo marka laga reebo labadii maalin ugu horreysay. Duqeymihii weerarkii weerar celiska ayaa si aad u socdo. Sidoo kale hanjabaado ayaa la isdhaafsanayaa labada dal. Waxaa si weyn la isku dhaafsanayaa hanjabaado aad u kulkulul. Wasiirka gaashaandhigga Israel Katz ninka la yidhaahdo ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaha sare ee ruuxiga ah ee Iiraan Ayatollah in markaasi uu la kulmi doono ama la kulmi karo dhammaad la mid ah kii Saddam Hussein kaasi oo ay rideen markaasna ay dileen dil ay ku fuliyeen kadib 2003 duulaan ay ku qaadeen xulafadii ama ay hogaaminayay dalka Mareykanka. Pakistan oo iyada hore u sheegtay inay markaasi garab buuxayna u tahay islamarkaana ay xataa haddii loo baahdana ay hiil ay soo gali doonto dagaalkaasi ayaa iyadana naftirkeeda banaanka iskeeda Iiraan meesha ay u taagan tahay. Dowladda China ayaa iyadana si adag uga hadashay iyadoo markaasi ku tilmaantay wax walba oo ka dhacaya bariga dhexe inuu ka mas'uul yahay dowladda Mareykanka iyadoo markaasi ay muujiyey in haddii arrintani ay sidani ku sii socoto ay tagi doonto meel aan waxba laga qaban karin sida ay sheegtay waaye.
Chineska ayaa dana weyn waxa ay ku leeyihiin ama kala dhexeeya dowladda Iran iyagoo markaasi shidaal ka qaata ganacsiyo ka dhexeeya sidoo kalena naftirkiisa waxyaabo badan ay iska kaashadaan waa wixii warar oo soo kordha insha Allah halka aad nagala socotaana waa warbaahinta Global Computer Youth Group aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.